إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله سبحانه وتعالى wuxuu noo sheegay qolada naxariistiisu ay ku dhacayso inay yihiin qolada raacday rasuulka sala allahu calayhi wasalam. naxariista alle waxay gaaraysaa dadka raacay nabiga allah oo maxamed ah sala allahu calayhi wasalam. nabigaas oo ummiga ah oo macnaha ah mid aan wax akri jirin waxna qori jirin. nabigaas oo sifaadkiisa laga helay dadka yahuud iyo nasaaro la yidhaah agtooda oo ku qoraa towraad iyo injiil. macnaha waxaa maktuub agtooda ku ahaa towraad iyo injiil sifaadkiisa. waxau amrayaa macruufka, waxuu reebayaa munkarka, waxau u xallilayaa waxa wanaagsan, waxuuna ka xarimayaa ashyaada xun. nafsadeeda ayadaa caddayso afkay ku caddayda in la mahriyo. walbikruna idnuhaa sukuutuhaa. gabadha bikaaradaana waa in la weydiiyaa, waa in lala hadlaa hadday xishoodsanaya. dadka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxau amray fuliya, waxa uu ka reebana ka hara, waxa uu u xallilay la yimaada, waxa uu ka xarimana isaga tagaa. waa dadka adduun iyo aakhiro wanaagga gaaraya. naxariista alla dadka helayaana waa kuwa. kolka waxaan diraaso ku samayn doonaa haddii alla qadaro sigaarka cabitaankiisa iyo baasha la yidhaha tumbaakada. waa tobaakada say u yaqaaniin dad badane. sharcigu waxa uu ka qabo sigaarka iyo tumbaakadu waa isla mid. maxaa yeelay sigaarkaad arkaysid tumbaaka un baa laga sameeyey. bahalladaas in la cabo ama la cunona waxaa aada iyo aada ugu mamanaaday dadka juhalada agtarkooda iyo kuwa dabaalada ah. waxaadna aada iyo aada u arkaysaa inta aan caqliga lahayn oo idil ama tubaako ayay cunaan ama sigaar ayay cabaan. waayo tubaakada ama sanka ka qiiceeda ka siiday ama afka dhacaankeeda ka tuf waa isla mid oo wuxu waa isla tubaako. waxayna sheegteen inaysan mashaaikhdoodu ka xarimin. marka sida arrinkaasi og yahay ayaanu wax ka darsi doonaa haddii alla qadaro subxaanahu wa tacaala. waxaan odhanayaa shaki kuma jiro tubaankada iyo sigaarka xumaantadooda, qurunkooda, inay wax sakraamiyaan, inay jidhka bani aadamka dhibaato u geystaan. shaki kuma jiro. nusuusta saxiixa ah oo la soo naqliyey ayaa xaaraamnimadoodu ku caddahay. caqliga wanaagsan ee nabadgalay oo aada iyo aada u deggan ayaa garan kara xaaraannimadooda. dhakhaatiirta aqoonta leh ee la ictibaariyo wararkooda ayaa caddeeyey qofka cuno ama caba sigaarka inuu dhib adag la kulmayo
naftiisana ay dhibaato ka soo gaarayso. haddaba naska ugu horreeyoon deliishanaynaa wuxuu yahay aayadda ou rabbi yidhi wayuxillu lahum aldayibaati wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is. wuxuu u xallilayaa nabigu waxyaalaha wanaagsan oy ayagu iska xarimeen ama dembi ay la yimideen looga xarimay, waxaana loo xallilayaa waxaana markaa loo xallilayaa waxa wanaagsan, waxaana laga xarimayaa waxyaalaha xun. oo yuhuudda ayaa waxay samayn jireen inay sheeyaabna ayagu xallisheen oo xaaraan ah, sida dhiigga rubadda waxa baktiyey, hilibka khansiirka iyo wixii la mid ah. ashyaa wanaagsanna looga xarimay dulmiga ay galeen sababtii. haddaba dayibaadka waa waxay diintu ammaantay oo in la cuno oo la isticmaalo nala ku dhiiro geliyey. khabaa'istana waxaa la yidhaha waxay diintu cayday oo caafimaadka qofka wax u dhiba, islaamkuna oo meel adag ka abbaaray wax ka sheegiisa. dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa inay qurunka oo idil ka durgaan, xaaraantoo dhan inay ka fogaadaan, xaqa inay ilaaliyaan, nusuusta keliya inay ku camal falaan. sigaarku waxa uu ka mid yahay iyo tubaakada anwaacdeedu min akhbasi alkhabaa'is, waxyaalaha xunxun kuwa ugu xunxun ayay ka mid yihiin. wax walba oo bani aadamka maslaxa ugu jirtana waa uu dhibaa. sigaarka iyo tubaakada anwaacdeedu dhib bay u geystaan. sidaa darteed waxaa laga doonayaa qofkii islaam ah oo iimaan qalbigiisa ku jiro inuu ka durgo isticmaalka tubaakada anwaacdeedoo idil, hawsan isugu dhowaan bahasha tumbaakada la yidhaah, ama cabitaan ha noqoto ama cunitaan ha noqoto, nuucay doontaha laga sameeyo, iyo geedaha sagradda oo idil oo qaadku ka mid yahay oo qurunku ka mid yahay oo bani aadamka waxa cibaadada alle ka mashquuliyo oo dhan ay ka mid yihiin, caafimaadkiisana wax u geysanayaan. marka sigaar maanta inaan ka waranno iyo tubaako waxaad moodaa hadda inaan waxba saasa loogu baahnay, inkastoo dad badan ay leeyihiin waan doonaynaa inaan ogaano ha laga hadlo. waayo dadka sigaar iyo tubaako lagala hadlayo waxaa ka horraysa inay diin ilaahayba ogol yihiin, dadkii rabbi inay rumeeyaan oy nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ku daydaan ayaa lagala yahay. marka dad lagala ayay inay rasuulkii raacaan oy diinta dhab u qaataan, sigaar iska daya ma yeelayaan iyo tumbaako. balse waxaa la doonayaa qofkii asaga ay la tahay inuu diinta dadkeeda yahay inuu ka tanasulo. sigaar qof cabaya haddaad aragtid shayaadiinta u walaala la yahay, markhaatigiisa ayaan la qaban karin. gabar muslimada ayaan loo mahri karin oo waa faasiq. faasiqiintana in loo mahriyo dad cafiifiina oo nadiifa lama ogola. gabar sigaar cabta nin cafiifa oo aan sigaar cabin in lagu daro lama ogola. dadka sigaarka caba war laga yeeli karaa ma jiro, maskaxdooduna tamaam ma ahan. kuwa tumbaakada cuna oo ayagu yani aan sigaarka cabin ee tubaakada sida kala cunana waa la mid. ninka qaadka cuna ayaa la mid ah, iyo dadka daroogada isticmaalo idil. waxaa ku habboonaan lahe dadkan islaamnimada sheeganaya inay diinta alla dad u noqdaan. khabiidka qurunka badan leh oo sigaarka iyo tubaakada anwaacdeedoo idil ama qaadka qof isticmaalaya ayaa lagu leeyahay waa muwaxid oo tawxiidka u fahmay. goorma u tawxiidka fahmay? ilaahay tabar ma siiye, waa ka baktiga weli alla cunayo wadee. rabbiga u wadale ayaanu weydiisanaynaa qofkii khayr lala doonay ama diinta inuu wax u qabtaba jecel oo niyadiisa wanaag ku jiro oo sigaar iyo waxa lamida isticmaala, alla inuu ka soo jeediyo xaqa qof raaca ka dhigo. hanuunka qofka raacaa ma luma, dhibna sooma gaaro. qurunkaanu hanuun ma ahana ha layska deeyo. rabbina wuxuu nagu yidhi subxaanahu wa tacaala faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqa. ahadkii aniga hanuunkayga raaca ma lumayo adduunka, mana la cadaabayo ma halaagsamayo alla yidhi subxaanahu wa tacaala. midda kale rabbi wuxuu yidhi man camila saalixan min dakarin aw unsaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan dayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun. waraxadkii camal kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam
oo saxiixa waafaqsan sameeya oo ama nin ah ama haween ah marka uu samaynayana iimaan wanaagsan oo qalbigiisa ku jiro waan noolaynaynaa ayuu alla yidhi nolol wanaagsan oo nadiif ah oo aad iyo aad u qiimo badan. qofkii nolol wanaagsan iyo khayraad iyo faa'iido doonaya rabbigii ha ka cabsado, xaqa ha ilaaliyo, xaaraanta ha iska deeyo, kitaabka rabbi kaliya ha ku dhaqmo. nin sigaar cabay camalkiisu saalix ma noqon karo, waayo camalka saalixa ah qofka sameeya qalad yar hadduu ka dhaco waa tooba keenaa, diinta allah ayuu ku dhaqmaa, waxuusan daliil u haysanna kuma tillaabsado, waxaan nusuustu ka xarimina kama tago, waxaana uu ku dadaalaa weligii inuu dayibaadka isticmaalo kuna socdo cunitaankooda iyo xirashadooda, wixii xaaraamana uu ka tago. waayo rabbi baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min adayibaati wacmaluu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum. war dadka allah iyo aayaadkiisa rumeeyeyow waxyaalaha wan wanaagsan oo idinku arsuqna xaggooda ka cuna. rusushana alla wuxuu ku yidhi yaa ayuha rusulu kuluu min adayibaati wacmaluu saalixa. war rususha rabbi dirsadayey waxyaalaha xalaasha xaggooda ka cuna, camal wanaagsanna la imaada. shayga dayibkaa oo nadiifkaa oo aan nafta iyo diinta iyo maalka dhib ugu jirin ee maslaxa ay nolosha bani aadamka ugu jirtaa naloo ogol yahay. waxyaalaha qabiidka oo qurunka badan lama ogola ee rabbigiin ka cabsado isaga tanasula haddii iimaan idinku jiro. rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilah. war dadka allah iyo aayaadkiisa rumeeyeyow iyo nabiga maxameda sala allahu alay wasalam waxyaalaha wan wanaagsane xalaasha xaggooda ka cuna, rabbigiina ku shukriya. xaqiiqadu waxay tahay allah subxaanahu wa tacaala inuu nabiga maxameda soo saaray sala allahu calayh wasalam, loona soo diray jamiica faqalayn, labada la cusleeyo oo dhan waa jinni iyo insiya. macruufka inuu amro munkarkana ka reebo. macruufka waxaa lagu yidhaahdaa wax kasta oo sharciga lagu ammaanay oo fitrada saliimka ay ogoshahay. waxaa kaloo lala soo diray rasuulka sala allahu alayh wasalam khalqiga noloshooda iyo adduunka iyo midda aakhiradaba si ay u noqon lahayd mid wanaagsan oo ay mujtamacaadka inuu hagaajiyo, fasaadka iyo qurunka inuu la dagaalamo, wax kastoo mamnuuca inuu ka celiyo ayaa nabiga loo soo diray sala allahu alay wasalam. munkarka uu ka reebo wax walboo sharciga lagu inkiray oo qofka bani aadamka adduunka ama aakhirada labada dhibaya. waxaana la doonayaa wax aad isticmaalaysaa inaysan dhib lahayn soo degdega iyo mid dib dhaca xagga noloshaada adduunka, xagga noqodkaaga aakhirada, badankaaga, caqligaaga, umuurtaada soo degdegta iyo teeda dib dhacda labadaba shaygu inuusan ku dhibayn baa loo baahanyay oo maslaxa kuugu jirtood wanaag ka gaarayso. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu amray nebigiisa inuu u xallilo dadka waxa wanaagsan ouna ka xarimo waxyaalaha xun. allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta wuxuu amray wixii uu rususha amro ah waxyaalaha dayibaadka oo nadiifka xaggooda in laga cuno. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu baneeyey waxyaalaha wanaagsan oo xalaasha ah oo nadiifka ah, ibaaxadooda rabbi waa caddeeyey, isticmaalkooda waa ogolaaday, in lagu macaansado noo sheegay, loogana shukriyo. shukrigana waxaa ka mida nicmada alla kusiiyo looga shukriyo in waxa aad cuntay amaad labisatay oo xalaasha ku ahaa aad u kaalmaysatid daacada alle, ridaha alle, awaamirta ay diinta ku amraysa fulinteeda iyo nawaahida ka tegitaankeeda waxaa lagaa reebay. allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xadiiskaa wuxuu ku warramay oo noogu sheegay nabigiisa inuu amray sala allahu calayh wasalam inuu ummadda u jideeyo dayibaadka xalilitaankooda iyo qabaa'idta ka xarimitaankooda. qur-aanka balaaqadiisay ka mid tahay. arrin jumladaas yarta ood arkaysid oo ah wayuxillu lahum dayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'isa waa caam, waxayna caam ku tahay wax kasta oo dayibaada in lagu xalilay oo xagga cunidda, xagga cabidda, xagga labiska, xagga guurka iyo jamiicu mubaaxaad oo dhan, iyo wax walbo qabaa'ista in lagaa xarimay oo ku dhibaya xagga cunidda, xagga labiska, xagga guurka iyo jamiicu lmuxaramaad oo idil. shaarica xakiimka ummaddan dusheeda kama xarimin ilaa wax dhibaya ma aha noloshooda adduunyada iyo noqodkooda aakhirada, ama amarkooda soo degdega oo adduunka iyo kooda dambe dibdhace aakhirada ah. khabaa'ista qurunkaa oo wax dhibaysa oo dhibkoodu muuqanayana sigaarkaa ka mida maanta lagu ebteleeyey in badan oo bani aadamka ka mida waxaa lagu ebteleeyey cabitaanka sigaarka, cunitaanka tumbaakada iyo qurunka iyo waxa daroogada oo idin, ilaa ay waxyaalahaas qurunka ah oo tubaakada anwaacdeeda ah iyo waxyaalahaas daroogada oo dhan agtooda ay caadi ka noqotay walciyaadu billaah, ilaa ay xallisheen
ilaa ay yidhaahdeen kama noolaan karno sigaar hadday tahay, hadday bahasha shiishada la yidhaah ay tahay carabtu ku baalan tahay, hadday tahay tumbaakada afka la gashado, hadday tahay sheeyaal kale oo la dhuuqo, wax alla waxaa qiica sanka laga keenayo oo qurunka badan leh iyo bahashaa qurunka badan leh oo tumbaakada oo marka afka la gashado waxyaalaha qurunka badan oo qofku soo tufayo, ashyaadaas oo idil waxay ka mid yihiin waxyaalaha qabaa'ista oo la iska xarimay. dad badan baa bannaysay, waxayna ka jaahil noqdeen waxa dhibaya iyo waxa anfacaya. waxay wanaagsadeen shaygii qabiixa ahaa oo xumaa, waxaa ka qarsoonaaday shaygan qurunkiisa iyo dhibkiisa. in badan oo dadka ka mida arrinkaas ayaa ka qarsoomay. waxaa laga doonayaa marka qofkii iimaan qalbigiisa ku jiro ee waxaa wax ka mida isticmaalaa inuu isaga tago. war dadka isticmaalo waxyaalahan qurunka oo qabaa'ista ah, dadka isticmaalo waxyaalaha markhaati ma galaan, hadalkay sheegaan lama qabsanayo. maxaa yeelay ma ahan dad cudalaa ee fusaqa ayaa lagu tirinayaa. allah subxaanahu wa tacaala markuu markhaatiga ka sheekaynayo wuxuu yidhaahdaa wa ashhiduu daway cadlin minkum, waxaad markhaati gelisaan shaygaa laba qofood oo cadaalo u saaxiibo adinka idinka mid ah. rasuulka sala allahu calayh wasalam markuu guurka ka hadlayay waatuu xadiid saxiixa ku yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin. wax nikaax la yidhaah ma jiraan oo qofka ka ansixi maayo ilaa in weli la helo iyo laba qofood oo cudalo ah oo markhaati kaca ma ahane. meeshii inanta lagu mahrinayay nin sigaarku cabaya oo odhanaya laleeyahay shuhuudda ayuu ka mid yahay, waa shuhuud aan suuragal ahayn, wax wanaagana aan lahayn. marka muslimiintu rabbi ha ka cabsadeen, hana iska deeyeen waxyaalaha qurunka badan leh oo diinta islaamku ay dadka u diiday. arrinta kale booska taallaa waxa weeyaan axadkaa sigaarka caba oo qurunka isticmaala iyo tubaakada anwaacdeeda, makhluuqa ilaahay ayuu dhibaa, dadka in la dhibana lama ogola. rasuulku xadiid ayuu ku yidhi sanadkiisu xasan yahay, laa darara walaa diraar, in dhib laysku bilaabo ama dhib laysku amaalmariyaa ma jirto. axadka qurunkaa isticmaala markuu kula hadlayo afkiisaa kuu soo urin, marka uu adiga kula fadhiisto waxaan qurunkaa qiicooda iyo tufitaankooda ku soo gaarin. si kastaba waxaad arkaydaa inuu wax dhibayo, mar walbana uu dhib ka shaqaynayo. hadday gaari lala fuulo iyo haddii waddo lala maro iyo haddii xaflad lala xaadiro iyo haddii lala jiifsado, kulli dhibaato iyo mashaakil ayaa lagu qabaa dadka isticmaalo waxyaalaha kan. marka muslimiintow rabbigiin ka cabsada oo diinta islaamku siday tahay u ilaaliya. dadka isticmaala tubaakada anwaacdeeda iyo sheeyaalka lagu daroogoobo waa dad noqday dad munaafiqiin ah. waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi aayatu lmunaafiqi halaata, idaa xaddasa kadaba wa idaa wacada akhlafa wa ida tumina khan. axadka munaafiqa calaamadiisu waxa weeye markuu sheekoonayo waa been sheega, marka uu ballan qaado waa ka baxaa, ammaanadana wuu ka deeceeyaa. dadkan islaamnimo iyo wanaag iyo inay muslimiinta jecel yihiin ayay sheeganayaan, been bay sheegayaan. oo nin sigaar cabay muslimiin ma jeclo, sigaarka uu ku dhibay. nin sigaar cabay wanaag iyo diin ma ilaalin oo fisqi ayuu la yimid. ballantii way ka baxeen oo wax diinta dhib ugu jirta inaysan samaynayn bay hore u sheegeen, way ka baxeen oo dulli bay la yimideen. rabbi in laga boqo subxaanahu wa tacaala oo xaqa la ilaaliyaa muhim weeye. ha laga tanaasulo waxyaalaha xunxun, sharciguna siduu yahay ha loo ilaaliyo. axadkii shay la xarimay xallisha ama la imaatinkiisa ku dadaalaa dhibaato badan ayuu la kulmayaa. dadkaa qurunka waxyaalaha ah isticmaala ducadooda ayaan la aqbalayn. waayo rasuulku xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi ina allaha tacaala dayibun laa yaqbalu ilaa dayiba. alla waa alla xumaan ka nasahan, wax aan nadiif iyo dayib ahayna rabbi ma aqbalayo subxaana wa tacaala. marka waa in wax dayib ah oo yani aada iyo aada u wanaagsan oo yani qofka uu la yimaadaa markuu doonayo in laga aqbalo camalkiisa. dayibka aad la imaanaysaa waxaa loola jeedaa camal waafaqsan kitaabka alla iyo sunnada nabiga, oo loogu xoogaabay wax xalaal ah, oo la labisay wax xalaal ah, oo afkaaga wax ka soo baxay ay ahaayeen xalaal,
ninka odhanaya salaad baan dukanaya ama sakaan bixinaya iyo sadaqo markuu salaada dukanayana afka qaad ka tufay ama tubaa ka tufay ama sigaar soo dhigay markuu yani sadaqada bixinayana gacanta bidix isagoo ku haysta wixii samaynaya axadkaas axad wanaag leh oo khayr leh inuu samayn way ka muuqataa hadduusan ka tooba keenin halis buu ku sugaya naftiisa ayaana loo baqanaya mana laga sugayo inuu wanaag gaaro rasuulka sala allahu alayh wasalam sacad wuxuu ku yidhi ducada in lagaa aqbalay haddaad doonaysa adyim madcamaka takun mustajaabu dacwa waxaad cunaysa xalaal ka dhig ducada waa laga ajiibaya rabbi baana ku gargaaraya subxaanahu watacaala xaaraantan yaan loo bareerin oon xaqaan lagu cayaarin ilaah diintiisa yaan laga tegin oo dariiqa nabiga yaan la khilaafin sala allahu alayh wasalam waxa kan haddii wax la ogol yahay ay yihiin dhibka islaamka ku hayeen kuma aysan hayeen ee dadka islaamnimada u nisbe sheeganaya diintan ilaahay ilaaliya oo xaqan isaw yahay ugu socda oo yaan kitaabka alle iyo dadkiisa la dhibaataynin marka khabaa'ista iyo qurunkii la diiday waxaa ka mid noqday daroogado idil sigaarka iyo tubaakada anwaacdoodoo dhan iyo wax walboo maskaxda bani aadamka wax u dhibaya halkaas ayaa lagu diiday waxaana la doonayaa qof walboo muslima inuu u guntado sidau qurunka asaga ula dagaalami lahaa shayga xaaraanta isag uga hortegi lahaa waa inuu u guntado qofkii adduunka degdegiisa doonaya iyo dhaldhalaalkiisa oon aakhiro rabin adduunka intii rabbi ugu talagalay ayuu ka helin dibadeedna xagga alle wax wanaaga oo ka gaarayaa ma jiraan baalka kan la yidhaahdo yani tubaakada anwaacdeeda waxay leedahay dhibaatooyin fara badan badanka qofka ayaa ku daciifa xagga maadiga iyo xagga ruuxiga xagga ruuxda waa xagga cibaadada maadigana waa xagga jirka xooggiisa qufac fara badan baa laga dhaxlaa qalbiga ayaa ku jirada xabadka weeyaane sababka dhibaato u geystaan dhibaatooyinkaa markii laga hela ka gadaal ayaa haddana waxaa kusii kordhaya qofka mashaakilla kale markuu yani ou yahay axad tubaaka cuno ah waxaa kaloo laga helaa afkaaga oo soo ura ilkahaaga oo midabku ka bedelmo wasaqda oo ka badata iyo yani cunitaankoodana wuxuu ku gaarsiinayaa qurunka maanta dambe ilkaha way hallaabaan dadka macnaha adibada ee muslimiinta ee xudaaqiinta iyo xataa kuwa gaalada ee caqliga leh waxay qarariyeen dhibaato badan inuu leeyahay waxyaalahan tubaakada laga sameeyo xagga keliyaha xagga caafimaadka qaybihiisa oo dhan in dhibaatooyin u geysanayo dasaa-ibta iyo waxyaalaha qurunka oo shaydaanku oo insaanka ku samaansaba ayay ka mid yihiin rabbi baanu ka magangelaynaa khabaa'ifta hooyooyinkooda oo xashiishada iyo qurunka dhan ah inaanu xallilano waayo dad baa iska xallishay xashiishadii khamradii iyo wixii kaloo lamid ah wa rabbigiin ka cabsada oo diinta islaamka ilaaliya xaqa dadka ku tuntaa dhibaatooyin badan ayay la kulmaan ee dadka islaamnimada sheeganayo kitaabka ilaahay yaan lagu xadgudbin sunnada nabiga yaan lagu cayaarin sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa ku sugan nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaaraam shay kasta ee maskaxdeed bedelaa waa khamra khamro kastana waa xaaraam waxaa riwaayadaha gabal sheegayaan kullu muskirin xaaraam muskir walba wax sakraamiyo kasta waa xaaraam wax walba sakrad keeni karaya tubaakada anwaacdeedu inay sakrad keento oo qofka dowaayo oo sarajoogga ka dhaco ee uu isku dardarmayo oo indhaha uusan wax uga jeedayn waa wax caddaana oo lagu sakraamayo inta ay dhiiggiisa ku jirtay afka u ku hayaan oo sigaarka iska daba daarayaan waa caadi wuxu hadday jirkiisa ka baxaana bis weeye marka waa daroogoo kale daroogada intay jirkaaga ku jirto xoog iyo farxad iyo waxbaad haysataa jirkaaga hadday ka baxdaana balaayadii ku haysataa kugu soo baxaysa wa rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala oo diintan ilahay dad ilaaliya hala noqdo sunanku waxay qoreen abu daawuud iyo tirmidi oo xasan laga dhigay inuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam kullu muskirin xaaraamun wamaa askara alfarqu minhu familu lkafi minhu xaaraam wax walboo lagu sakraamaa waa xaaraan faraq weelka la yidhaah wax buuxiya waa 16 kiilo meelahaas wax buuxiya yani weelkaa faraq ah oo waxa lagu sakraamo ah haddii hal sacab laga cuno waa isla mid macnaha waxaa loola jeedaa wixii qaybtiisa badan lagu sakraamo qaybtiisa yarna xaaraam weeye intiisa badan haddii lagu sakraamayo intiisa yarna xaaraam weeye waxaa laga garanayaa aayaadkan horay u akrinay axaadiista saxiixa ah xaaraannimada ow khabiiska muskirka ah uu leeyahay oo tubaakada anwaacdeeda ah dadka muslimiinta oo rabbigiin ka cabsada oo kitaabka ilaahay dhaqankiisa la imaada shaki kuma jiro muskiraadka inaan wax faa'iidaha oo ku sugan la arkin ilaa dhibaato mooyaane rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu diiday ou reebay shay kastoo muskira ama mufdir ah wax kastoo lagu sakraamo
iyo wax walba oo qofka noojiyo oo cajis geliyo oo xibnuhu isla daynayaan oo sidaas yani u raadinayo. xadiidka isaga imaam axmed iyo abu daawuud baa soo saaray. waxau yidhi ninka zaynu ciraaqa la yidhaha sanadkiisa waa saxiix. wa rabbi ha laga bogo wax kasta oo muskir ah oo muskira dhibaatay ku geysanayaan iska ilaaliya. diintan ilaahay dadkeeda noqda. war fasaqaha noqonina. war dad waaweyn oo ciraysto sagaar cabayaa la hayaa. culamo waaweyn oo inay diinta yaqaaniin loo malaynayo sagaar cabayaa la hayaa. ashar baanu ka soo baxnay iyo jaamaca islaamiya oo kale ay ku hayaan misaalan sigaarkay xabad xabad ku daarayaan. islaami bay sheeganayaan. daraasay akrinayaan. dad bay diin u daraasaynayaan. say ku suura gashaa wax noocaasa. war alla diintiisa la ilaaliyo. xadiidka waxaa ku sugan maalka in la layaco oo la istihlaakiyo inay tahay wax aada u mamnuuca. marka ninka yani nin alla ninkii soo gada waxyaalaha lagu sakraamayo ama tubaakada anwaacdeeda waa nin maalkiisii layacay oo istihlaagay oo bilaaya ku dhacday. waxyaalo badan baa jira oo daruuriyaad ah oo nolosha u baahantay hala iibsado inta lagu cayaaro le xoolaha. saxiixaynka waxaa ku sugan nabiga sala allahu alayh wasalam inuu yidhi ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat. allah wuxuu dushiina ka xarimay waalidka in la caasiyo gaar ahaan hooyooyinka. wa wa'da albanaati gabdhaha in la nolol duugo oo gabadhii oo nool god lagu rido lagu aaso waa say qorayshi yeeli jirtay. ninkii ayadoo nool oo saqiira god ku riday waxaa ka xun aan la mid ah axadka inta koriyey oo cunto ka dherjiyey qaawiyey suuqa ku soo deeyey ee yidhi xaaraanta soo malabso oo xaqa inuu xaraf ka mida bar uga bakiilay oo yidhi maxaa naagu diin ka taqana. wa manci wahaad alla wuxuu xarimay in magaranaysaa la manciyo xaq lagugu leeyahay amaad u yeerato wax aadan lahayn. alla wuxuu idinkaada yidhi kaliya waqaala wa kasratu su-aal wa idaacati ilmaal. hadalka faraha badan su-aasha badan iyo maalka oo lagu layaco oo la dhigo meel aan laa'iq ahayn. war muslimiintow rabbigiin ka baqda oo xoolihiina meel aan laa'iq u ahayn ha ku bixinina hana dhiginina hana yani niyeysnaanina inaad dhigataan meela aan laa'iq ahayn ama macnaha dhigashada loolama jeedo iska dhigoon kaliya. waxaa laga wadaa inaad ku bixiso. haddii meel aan laa'iq u ahayn ay ku halaabayaan aad dhigtana adi adiga waa la mid. baalkan sigaarka la yidhaha iyo tubaakada anwaacdeeda awalan marka koowaad caafimaadka way dhibaan. marada labaad waxay ka mid yihiin muqadaraadka laisla ogol yahay inuu manhiyun canhu yahay oo jirka way noojiyaan iftaar iyo wax daran bay ku sameeyaan. arrinta saddexaad waxa weeye riixda ka imaanaysa ayaa dadka dhibta. ahadkii basal cunay iyo toongur masaajidka laga eriyo nabigu yidhi ayagoo inay xalaal yihiin la ogyahay sigaar oo xaaraannimadiisa aan wax diidi karaa jirin oo diin leh maxaad u malaynaysaa ninka soo cabay. waxaa kaloo saxiixaynka ku sugnaaday malaa'igta waxaa dhibaya waxa bani aadamka dhiba marka afkaagu waa inuu nadiif yahay. rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam man aadaa musliman faqad aadaanii waman aadaanii faqad aada allah. axad muslima axadkii dhiba aniga ayuu i dhibay axadkii aniga i dhibana allah ayaa dhibay u yihi sala allahu alayh wasalam. dabaraani baa awsad ku qoray sanadka xadiidka waa la soo dhoweeyey. axad alla axadkii aniga i dhiba allah uu dhibay ayuu leeyahay sala allahu alay xadgudubka iyo muslimiinta dhibka lagu hayo ha layska deeyo. qurunka dadka lagu geycinayo iyo waxa jeene afka laga soo saarayo ummadda lagu hortufayana ha layska deeyo. midda kale waxa uu yahay bahalkan la yidhaha sigaarka iyo tubaakada anwaacdeeda iyo qurunka kaloo la midka ah waxaa ku sugan israaf. israafkuna xaaraam weeye. waxaana la ogayay dadka xoolaha ku israafaa inay alla agtiisa dhibaato badan ku leeyihiin. waxay caddaynayaan axaadiista iyo aayadaha qur-aanka oon horay u akrinay iyo naqliga saxiixa oo idilba dalaa-isha ku soo aroortay halkaa iyo kuwa caqliga laga garanayaba waxay kulligood iclaansheen tubaakada anwaacdeedu inay xaaraam tahay in aan la isticmaali karin. axad walba oo muslima waxaa laga doonayaa in uusan cabin sigaar tubaakana cunin daroogana isticmaalin. axadka duqaanka cabaa waa insaan aan caqli lahayn. caqligiisu qofkau kaamil yahay inuu qalbigiisa iyo calooshiisa ku cayaaro qiic iyo qurun kale ka buuxiyaa ma suuro gasho. marka dadka cabaya waxyaalaha oo ayagu isticmaalaya mar walba waa dad caafimaadkooda iyo naftooda. dadka cabaya sigaarka ama tubaakada cunaya ama daroogada isticmaalaya waa dad nafsadooda ku cayaaray. waana dad aan naxariista ku habboon naftooda garanayn. allahna qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima. nafsadiina ha dilinina alla wuxuu ahaaday haddana yahay idiin ahaan doonaa mid adinka idiin naxariisto ah. marka naftiina ha dilinina
wax kasta oo maskaxda bedela ama darooga ah ama ay dadka maanta jooga isticmaalayaan magacay rabaanba ha u bixiyeen oo ashyaada la cabo oo sigaarka shiishada qurunka tawaakada iyo waxaa ah nafta ayaa lagu dilayaa halaag baana ugu sugan ahadkii nafsadiisa shay ku dila ama sabab ugu noqda in la dilo waxaa shaaricu kuwa u waajibiyey naar inuu leeyahay rabbi baanu ka magan galnay qofka caaqilka ah macnaa umuurta cirib dambeedkeeda ayuu fiiriyaa iyo xaaladda waxay u aayi doonto qofka caaqilka ah waxuu iska ilaaliyaa wax walba oo sabab u noqon karaya caafimaad darro waxuuna ku dadaalaa oo soo jiitaa wax walba oo caafimaadkiisu ku soo dhowaan karayo rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiid saxiixa ayuu ku yidhi man qatala nafsahu bishayin facudibahu fii jahannam ahadkii nafsadiisa shay ku dila shaygii laftigiisa gacanta inta loo geliyaa jahanabo lagula cadaabayaa marka hadduu towray isku dilay isagoo jahanabo ku jira towray isla dhaca hadduu nafsadiisa towray ku dilay isagoo jahanabo ku jira ayuu towray isla dhicin hadduu cabay ama u cunay waxyaalo nafta lagu dhibayana sidaa oo kale weeyaan ama usun cabay marka dadka islaamka ah oo naftiina ha dilinina allah wuxuu aayad qur'aan ku yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka war nafsadiinna waxay ku halaagsantoo dhib u keenaya ha ku tuurinina oo nafsadiinna dhibaatooyinka iyo barobaleemka ka xalliya oo xaqu sida uu yahay ugu socda oo diintan islaamka ah oo sharafta iyo qiimaha badan ou rabbi u yeelay wixii danu idinkugu jirto oo aad ku liimaanaysaan ayadaa idin bartaya ku dhaqma waxa adinka idin dhibaya oo caafimaadkiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftiinna dhibaya ayadaa idinkaga digtay isaga taga war dadka sigaarka caba ama tubaaka cunaa inaysan dad wanaagsan oo khayr la ahayn dadow ogaada war caafimaadkooday ku cayaareen war islaamkii ayay dulli u soo jiideen war xoolihii muslimiinta ayay gubeen war nafsadooda ayay dhibaateeyeen war haweenkooda iyo ehelkooday dhib u keeneen war ilmahooday qurunka bareen oo uga dayanaya war shayaadiin weeyo gacanta bidix bay wax ku cabaan maxaa yeelay sigaarka bidixdaa lagu qabsadaa rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa ta'kuluu bishimaal fa ina shaydaana ya'kulu bishimaal bidixda waxa ku cuninina bidixda shaydaankaa wax ku cune sidaa darteed sida shayaadiintoo kale weeyo sigaarka looma qabto bisinka waayo waa wax uu shaydaan wato daroogadoo dhan bisin looma qabto qaxadka u qabtaa hadduu u qabta lagama aqbalo waayo wuxuu cunayaa waa bakti hadday qaad yihiin hadday xashiishad yihiin hadday khamro yihiin hadday qurun kale yihiin waxyaalaha in layska deeyo oo muslimiin la noqdo oo diintan dad u shaqeeya la noqdo ayaa loo baahan yahay ma dadka maanta joogaa iska daynaya waxa kan ayaad arkaysaa dhiigga xoolaha marka la gowraco rubadooda ka soconaya ayadoo la cabsiinayo oo lagu dawaynayo oo kuwa culimo lagu sheegaya ay dadka siinayaan waxaad arkaysaa hilibkii khansiirka oo la cunayo ilaa ay dadka yurub u dhoofaa ku faanaan in badan oo ka mid ah waxaad arkaysaa hilbihii baktiga ayadoo la cunayo xoolaha taariku salaadku gowracay waa bakti xoolaha ninkan ilaahay keligii ku xireen oo gowracay waa bakti xoolaha loo qalay yani waxyaalaha yabarada ay ku sheegaan ama jinniga waa bakti kuwa booranaha iyo mingiska loo qalay waa bakti kuwa inta yani sharad laga galay ilaahay qayrka loo qalay waa bakti baktigaas dad calooshooda ka buuxinayo oo qurunka noocaasa cunaya sigaar hadda inay ka tagaan maba suuro gashaba waayo wax kasii baktisan bayba cunayaan dadkan marka waxaa ku habboonaan lahay diintan inay dib u eegaan ayna bartaan dadka ayagu odhanaya muslimiin baa nahay maanta oo adduunkan joogana xarafna ma yaqaaniin xaraf in loo kordhiya ma rabaan xaraf hadduu u kordho inay alla uga cabsadaanna ma rabaan xaqa inay u gargaaraan ma doonayaan xawdka nabigana adduunkay ka jecel yihiin waxaa ku sugan war alla ka baqda subxaanahu wa tacaala oo sidatan uma habboone dad yow khabaa'ista iyo qurunka isaga taga muslimiinta waxaa ku waajiba kulligood inay la xarbiyaan khabaa'ista oo idil iyo munkaraadka oo idil wax walba oo diinta islaamka ay diiday waa inay la dagaalamaan waxaana alla noogu bedelay waxyaalaha khabaa'ista ah waxyaalo dayibaad ah oo naafic ah oo macmacaan oo nafteenna wax ku taraya waxyaalaha dhibaatada maanta muslimiinta ku haya waxaa ka mid ah in salaada laga tegey salaada oo laga tagaa waa kufri in salaada waqtigeeda laga dibdhigo sida salaada subax oo kale ilaa la dukado markay qoraxdu soo bixi rabto balaayooyinka waaweyn oo jira waxaa ka mida zinada khamro cabidda iyo ilaahay diintiisa inaan wax lagu xukumin rabbi baanu ka magangelaynaa balaayada
waxyaalaha waaweyn oo jira waxaa ka mid ah inay haweenku tabaruj iyo qurun ku samaynayaan waddooyinkoy siinadooda muujinayaan oo ay ragga xabadka ku salaaxayaan. haddaba musiibo weyn ayaa nagu habsatay. shaygii munkarka ahay macruuf buu noqday, macruufkii buu noqday. fa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waa musiibo aan musiibo ka daran u jirin. shaygii diinta lagu inkiray dadkii wanaag bay ka dhigteen. shaygii diintu dadka u dirtay xumaan bay dadku ka dhigteen. sunnadii nabigu waxay bayaanisay bidco ayay u oqoonsadeen. wixii bidco ahaa oo baatil ahayna diin iyo wanaag bay ka dhigteen. saasay ummaddii ku ba'een. ilaahay barakada belelka naareedna uu ku sugayaa. rabbi naguma daree musiibaa dhacday. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. war rabbigiin ka cabsada, war xagga ilaaliya. war dad badan oo maanta ka mida muslimnimada dadka sheeganaya waxay ku dul ictikaafayaan yacni raadiyowga, telefisyoonka, zaneemada, tv-ga iyo wixii kaloo lamida ayagoo sigaarka, qurunka, shiishada waxa daran iska dabageynayo oo cabayo oo isticmaalaya. awgaadooday la yaceen, camalkooday ku cayaareen, akhlaaqdooday baabi'iyeen. wax kastoo ilaahay diidana way xallisheen, wax kastoo aakhiro cadaab u soo jiida way ku dhaqmeen, wax walboo jannada alla lagu galana way ka durgeen, samaantay ka bakiireen, xumaatadana way ku dadaaleen. markaasaad arkaydaa dadkii inay ku sifoobeen aayaddow alla yidhi wa amaa man bakila wastaknaa wakadaba bilxusnaa fasanuyasiruhu lilcusraa. axadkii diinta dhaqankeeda ka bakiila oo xoolihiisa iyo xooggiisa ku bakiila oo tawxiidka dhaqankiisa beeniya iyo amaalmarinta maalinteeda waxa uu naar ku galaa loo sahlayaa. ummadda maanta joogta camalka naarta lagu galaa u sahlan siday u badan yihiin, waxa jannada lagu galaana way la dhib badan yihiin. war miyaanan muslimiin ahayn? war miyaanan diin lahayn? war maa daa'imkiina ka yaabtaan oo xaqa kan ilaalisaan dulliga iyo balaayada aad ka baxdeena. allah subxaanahu wa tacaala ayaan weydiisanaynaa xaqa dadkiisa inuu naga dhigo. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim. axadkii allah ku dhega oo cuskadoo amarkiisa qaata oo rabbi ku xirma alle wuxuu ku hanuuniyaa dariiq mustaqiima oo toosan. waa axadkii diinta alla ku dhaqmo waxa diintu ka reebaysa ka taga, waxa ay diintu u diraysana la yimaada. qofkaasu waa guulaysanayaa, liimaan fara badan ayuu gaarayaa. muslimiinta waxaa laga doonayaa markaysay u liibaanaan inay isaga tagaan waxyaalaha naftooda dhibaya oo diinta islaamku diiday. uma habboono axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey inuu dadka bani aadamkaa hadalladooda qaato, kalaamka alleh iyo kalaamka rasuulkana ou iska tuuro. dadka sigaarka iyo tubaakada bannaynaya waa dad ilaahay diintiisa cadow ku ah. muslimiintu waxay xujaysteen mar walbaba wayuxarimu calayhim alkhabaa'is. wau ka xarimi nabigu dadka dushooda qurunka, waxyaalaha sigaarka iyo waxa kaloo lamidkaa ah waa shay la bartay oo laga caado dhigtay. caadada shayga la yidhaah in laga tagaana waa arrin fudud. sidaa darteed isaga taga caadadaas iyo waxaa qurunka badan leh oo aad barateen. haddaad ka tegi weysaan waad ogaanaysaan inaad ka shallaayi doontaan maalin aan maanta ahayn. dad yow rabbigiin ka cabsada, hanuun iyo wanaagna rabbi hana siiyo subxaanahu wa tacaala. in duqaanka waa sigaarkee la cabo ama tubaako weeya la isticmaalo, waxaa lagu daroogooboo dhan noocay doonaan ha noqdeena cabiddooda iyo cunidooda iyo in laga beec mushtaro iyo in laysugu kaalmeeyo oo laysu soo gado waa xaaraan. axad muslima uma bannaana inuu sigaar u soo gado qof, amau u soo gado tubaako, amau u soo gado qaad, amau u soo gado qurunka daroogadoo idil. haweenta ninkeeda inay ka yeesha ma bannaana ii soo gad sigaar iyo wax la mid ah. hadday ka yeesho macaasi ayay ugu kaalmayday. hadday ka diidana mukhaalifo mid warkiisa khilaaftay ah ma noqonayso. maxaa yeelay macsiya dadka in loogu kaalmeeyaa ma bannaana. axadkii dadka ugu kaalmeeyey macsiyada waa inuu rabbi u tooba keenaa towba saxiixa. waxaana ku waajiba qofka inuu ka tooba keeno dunuubtoo idil
dunuubta laga tooba keenaya ayuuna ka mid yahay kaalmaynta macsiyada laysugu kaalmeeyey taasay ka mid tahay marka ha layska ilaaliyo waxaa laga yaabaa inay tahay inal muslimada sida ay sheeganayso oo diin ku fiican sigaarka xabadba nin xabad ku daaraya ayay guunta ayadoo ugu jeeda oo aan walba loo qarin oo ku og oo ku arkaysa ayadoo ku raacaysa dhaqaalo ama qabiil taasu islaamnimo iyo diin ma ahan waa nin gabar qaawan guursadoo kale yidhi waa qurux badan tahay tawxiid iyo muwaxidnimo iyo islaamnimo iyo diin oqoonna sheeganaya islaamkau sheeganayaa wuxuu yahay mid aan la garanayn weeye inanta ninka noocaasa daba gashana waa qof waxay tahay aan la garanayn diintan ha loo shaqeeyo wax ayada ka soo horjeedanayaan waraa laga dhiganin sida wanaagga lagu gaaraya sidaa weeyaane xagga diinta ayuu dhibin oo dhibaato badan ayuu ku hayaa bani aadamka waxyaalahan daroogada ama sigaarka iyo wixii lamid a aayadaha qur-aanku waxay caddeeyeen allah inuu naga xarimay shay kasta oo khabiis ah iyo wax walba oo na dhibaya wax walba oo khabiisa iyo wax walba oo wax dhibayaa xalaal ma ahan khubsiga iyo dararka ka muuqanaya tubaakada anwaacdeeda iyo waxa lagu daroogoobana waa wax iska caddaan ah haddaba dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa waxay u jeedaan inay dhibaato leeyihiin in aysan dhex gelin muslimiintu waxay yidhaahdeen waxaa la xarimay kullu dacaamin wa sharaabin fiihi madara cunto walba iyo cabid walba oo dhib ku sugan yahay waa la xarimay isticmaalkeeda marba haddii dhib ku sugan yahay in la isticmaalo la diidiyey lagana xarimiyey muslimiinta dadka ah xagga diinta ayuu dhibin oo qofka waxyaalaha daroogada ama tubaakada anwaacdeeda isticmaala cibaadada ay inuu isu taago qofkaasu waa ka cuslaan inuu waajibaadka alla ilaaliyaa way la dhib noqon khaasatan soonku aad ayuu u dhibayaa ilaa uu islaamaba kari kartid waxuuna ugu yeerayaa dulli iyo waxaan diinta ogolayn ayaa waxaa ugu yeeraya ashyaadaas uu cuni jiray markuu waaye jirkiisaa wicin shaydaanka ayaa odhanaya iska afur oo iska deey oo salaaddii ma aadi kartid ee waxa kan isticmaal qurunka ah war miyaanan u jeedin dhibka idinkugu sugan ma rabbigiin ka cabsataan waxaa la yaab badan qof caqli sheeganaya oo ku dadaalaya caafimaadkiisa inuu ilaaliyo oo haddana muqiim ku ah oo ku neg cabidda ama cunidda tubaakada anwaacdeeda isagoo arkaya dararka ku sugan kulligii ama gobol ka mida arkaya so ummaddatan ma ahan wax shaydaan ka qaalib noqday oo balaayo ay meel kale u wadato oon ilaahay diintiisa inay rabaan baa loo malaynayn qofkii doonaya inuu iska joojiyo sigaarka iyo waxa lamidka ah waa inuu rabbigii tala saarto waa inuu istikfaarta badiyo waa inuu rabbigii ka baryo inuu dhibaatada tan ka bixiyo waa inuu qalbigiisa rabbi ku xidho waa inuu dikriga alla badiyo waa inuu qur-aanka tadbiiqintiisa iyo akhrintiisa ku dadaalo waa inuu salaada leylka u soo tooso rabbi baa saacidaya markaa oo qurunka kan qof ka taga oo aan dib ula imaan ayaa laga dhigin marka rabbi ha laga cabsado ha la dadaalo diinta islaamkana ha la ilaaliyo si aan dhibaatooyin u imaanin dad baa waxay yidhaahdeen waan ka tegi lahayna kama aan tegi karno waxaad ogaanaysaa cunitaanka ashyaadaa la cuno qurunka waa caadona in la bedelaa way fududahay sida macruufka ah in laga tago yacni sigaarka ama tumbaakada anwaacdeeda kale mustaxiil ma ahan bal waxay ka mid tahay ashyaada aad u sahlan axadkii doonaya inuu isaga tago waa inuu dariiq naajix ah oo mujaraba ou qaadaa waana inuu isaga tagaa waana inuu goostaa inuusan dib dambe ugu laaban waa inuu ku dadaalaa mar kastow nafsadiisu ay ku soo dhacaan waxaas inuu dikriga alle u ordo shay kale oo ilaahay u xalaaleeyana ou cabo sida biyaha liimoonta iyo wixii la mid ah culammada islaamku waxay yidhaahdeen iyo fuqahada ummadda oo idil inay xaaraan yihiin tumaakada anwaacdeeda waa inay isla ogolaadeen waayo waxay muslimiintu leeyihiin wixii maalka dhiba xibnaha qofkana dhibaato u geysta ur iyo karna dadka u keeno uraya oo yacni kar ku jiro markay kuusa uran aada kahanaysid wax kasta oo noocaasa xaaraan weeye wax alla waxay doonaan baa noqdeen waxaa lagaa doonayaa inta aadan iibsan
oo aadan soo gadan waxa kan tumbaakada anwaacdeeda isweydii ma xalaal baa mase waa xaaraan ma ku anfacayaa mase waa ku dhibayaa ma wax yani wax wanaagsan oo dayiba miya mase waa khabiif waxaad heli doontaa inuu xaaraam yahay waxaad heli doontaa inuu ku dhibayo waxaad heli doontaa inuu yahay mid khabiif ah waxaad heli doontaa inuu yahay shay xun oo in loo dhowaado aan loo baahnayn ee intaadan gadanin ka hor su-aalaha adigu isweydii talow wuxuu ma xalaal baa mase waa xaaraan ma waxbau anfacayaa mase waxbau dhibayaa ma dayib baa mase waa khabiif waxaad arki doontaa inaad yahay xaaraan wax dhibayo khabiif quruna ou yahay bahalka duqaanka la yidhaha waa mid la xarimay beeciisaa la xarimay lacagta ka soo baxda in la cunaa la xarimay allah subxaanahu wa tacaala idaa xarama shayan xarama tamana xadiid baa ku soo arooraba rabbi markuu shay xarimo shaygaa lacagta ka soo baxdana wau xarimay oo lama ogolaa in la isticmaalo ama loo dhowaado marka muslimiintow rabbigiinka baqda oo diinta islaamka ilaaliya oo shay kastoo laydinka xarimay isaga taga waa haddaad wanaag doonaysaan ood rabbi agtiisa khayr iyo faa'iide ka doonaysaan dadka sigaarka cabaa mubadiriin weeye mubadiriintuna shayaadiintay walaala la yihiin allah baa qur-aanka ku yidhi ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shaydaanu lirabbihi kafuura dadka mubadiriinta oo xoolahooda ku turturo oo ku daadiya meel aan laa'iq u ahayn shayaadiintay walaala la yihiin shaydaanka iyo waxa raacana waxay ahaadeen wax rabbigood ku kufriyey oo isaga iyo waxa raaca jahannamaa laga buuxiyaa ciriiri allay sidaa kula kulmayaan cadaabkii alle ayaa u dheeriya caramka ahlunaarka ayay ka cabayaan hadday caqiidadoodii iyo camalkoodiiba ku cayaareen si aanan marka muslimiinow dhibaato iyo balaayo aadna ula kulmin diintan ilaahay hagaajiya oo tawdiirka iyo xumaatada iyo balaayo ka shaqaynta iska deeye oo sunnada nabigu siday tay u ilaaliyay sala allahu alayh wasalam war tubaankada anwaacdeeda iyo waxa daroogada ahba miyaa lagu cayilaa miyaa xoog lagu helaa miyaa xooluhu kuugu badanaya waa maya belyan hadday daroogo kaa soo galaan hal saacad ayay haddana kaa khasaaraysaa xoolaha kale way ka xun yihiin wax alla wixii sagaal iyo ku shaqan leh tubaakana waa nooca qaadka wixii ku shaqale sidaa weeye war dadka qurunkaan isticmaalaa ma nastaan dhibaato iyo waxay ku nool yihiin walwal iyo deganaan la-aan ahadkii rabbigii ka cabsada deganaan buu ku nool yahay dhibaato iyo walwalna ma haysto walwalka iyo barobaleemka intay iska daydaan diintan alla barta oo ku dhaqma oo xaqa ilaaliya oo macaasida isaga taga sidaas ayaa wanaagsan marka haddaba dadka muslimiinta ah waxaan u soo jeedinayaa nasiixa ku saabsan ashyaadatan qofka doonaya sigaarka inuu iska joojiyo waan u sheegay wixii uu isticmaali lahaa dadka lagu arkay oo sigaarka cabaya masaajidda ama wax uga dukanaya ama diin ahaan rijal laga qabo waxaa la doonayaa in qof walboo kamida keligii meel la geeyo oo la dareensiiyo tadkiinku dhibaatada u leeyahay haddii uu kaa diido naseexada iyo dareensiinta khayraadka oo qofku ou yidhaahdo maanaa la ii diidayaa mase xabaashii baa nala ka xarimaya ou yidhaahdo waxaa kuu bannaan inaad yani muqaadaca ku samaydid waxaa kaloo kuu bannaan inaad inta mimbarka istaagtid masaajidka aad ku tidhaahdid axad hebel sigaarku inuu xaaraam yahan u sheegay waana uu iga diiday oo wax waa iga maqli waayey xaqana waxau arkaya in lagu dhaqmo inanba loo baahnayn markuu isagu u arko noocaas oo kale sidaa darteed ha layska ilaaliyo waayo waxaa la doonayaa qofka khayr darradiisa markuu la soo baxo in dadka looga digo oo rabbi ha laga boqo la yidhaha subxaanahu wa tacaala sharciga mooyaane wax kalena dhaqankiisa la iska deeyo marka dadka muslimiinta ahow oo ayagu islaamka usoo nisbo sheeganayo qaacidadiina hagaajiya aad ku socotaan oo kitaabka iyo sunnada ka dhiga walaalaheenna muslimiinta ah oo ku nool mashaariq iyo maqaarib intaba waxaan ugu naseexaynayaa inay rabbi ka cabsadaan inay diinta tacaaliimteeda ay qabsadaan kitaabka rabbi inay ku dhagaan iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam inay ka digtoonaadaan ku dhicidda bidaca iyo khuraafaadka aan rabbi soo dejiye subxaanahu wa tacaala aan xujo loo haynin si ay u liibaanaan adduunka iyo aakhirada labada daarood ugana nabad galaan shaqinimada labada daarood khayrka kulligii wuxuu ku jiraa daacada allah iyo tan rasuulka sharta iyo balaayada kulligeedna waxay ku jirtaa oo lagu gaara macsiyada allah iyo midda rasuulka sala allahu calayh wasalam rabbi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waman yudici illaha wa rasuulah faqad faaza fawzan cadiima axadkii allah adeeca rasuulkana adeeca waa u liibaanay liibaan weyn oo aad iyo aad u qaali ah liibaan weyn ayuu liibaanay
waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaalan mubiina ahadkii allah caasiya rasuulkiisa caasiya oo amarkooda qaadadiida qofkaasu waa lumay lumid aad u fog ayuu lumay meel xun ayuu aaday wixii rabbi ku badbaadi lahay subxaanahu wa tacaala ayuu isaga tegey waayo waxau lumay lumid aad u fog waa axadkii allah caasiyey rasuulkiisa caasiyey diintan islaamka inuu dhaqan ka dhigto iska diiday waa qofka lumay lumid aad u xumaato badan marka muslimiinta u dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo xaqu sidooday u ilaaliya dad luma oo balaaya ku dhacdo si aanan u noqonin li'anna qofka diinta islaamka ku dhaqmi waayey oo ilaali diiday sidaas ayuu hadduu ku dhinto waxaa la garanayaa inuu cadaab alle agtiisa ku leeyahay arrinkaasu intuusan dhicin ka hor ha la dadaalo oo rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga digayaa mar kastaba waxa cadaabkeenna oo ku imaanayo nala ku cadaabayo waa nooga digi waayo rabbi waxau leeyahay wayuxadirukum allahu nafsah rabbi nafsadiisau idinkaga digayaa inaad inta khilaaftaan oo cisyaan la timaadaan oo cadaab idinku sallido taas ayuu rabbi idinkaga digin subxaanahu wa tacaala axadkaan arrintaas doonaynin rabbigii ha ka baqdo hana iska ilaaliyo waxyaalaha qaladaadka oo qurunka ah oo diinta islaamka qof ku dhaqma ha noqdo qofku axadkaan diinta islaamka ku dhaqmin aad iyo aad ayaa mashaakil oo ugu imaan doonaa marka muslimiinta u dadaala oo rabbigiin ka cabsada tooba keena axadkii sigaarka iyo daroogada iyo tubankada anwaacadeeda isticmaali jiray waxaa u furan inuu toobo keeno hadduu toobo keeni waayana masaa'ib adag ayaa ku dhici doona waxaa laga doonayaa qofka tawbadana waa mid ay muslimiintu isla ogol yihiin kulligood aayadaha iyo axaadiista qur-aankuna ayaad uga warrameen rabbi waxau yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxaad tiraa nabiyow war addoommadayda waxaad tiraa nabiyow ood ku tiraa dadka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku leeyahy addoommadayda nafsadooda ku xadgudbeenow oo xumaatada iyo qurunka sameeyeyow ha ka quusanina naxariista allah alla waa alla dembigoo idin dhaafa waana alla naxariista dembigow idiin dhaafi waa idin cafin sayi-aadkow idinka tirtirin waxaad samaynaysaana waa alla garanaya marka awalan taas ayaa laydinka doonayaa rabbigiin u laabta si dembiga la idinkaga dhaafo sidaa ku ilaah baa nabiga lagu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo la doonayaa istikfaar in lala yimaado oo astakfirullah iyo qoomamada ou qofku badiyo ousan marnaba dembigii ou sameeyey dembi la yar ousan noqonin waa inuu rabbigii u laabto istikfaarta ou badiyo mar walbana ou yidhaha rabbigow dembigayga ii dhaaf waxaa kaloo laga doonayaa xasanaad inuu la yimaado fara badan waayo xasanaadku sayi-aadkay baabi'iyaan waatuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala ina alxasanaata yudhibna sayi-aat xasanaadku sayi-aadka ayay baabi'in salaadaha inta udhexayda dembiga la galay waa lagu tirtirin xajka dembigaa lagu tirtiraa sakada iyo soonka dembiga ayaa lagu tirtiraa oo lagu dhaafaa qofka liibaan fara badan ayuu gaaraa markuu rabbigii u tooba keeno waajibaadka ilaaliyo sunnooyinka badsado ee khayrka ku dadaalo rabbi ka cabsada midda kale waxaa la doonayaa qofka haddii yacni uu dembaabo ama ay dhacdaba inuu dhinto in dadka mu'miniintaha u duceeyaan waayo ducada mu'miniintu ay mu'minka kale u ducayso sida markuu dhinto janaasada lagu dukado oo kale way anfacdaa cadaabka waa looga badbaadiyaa naxariis alle ayuuna ku helaa waxaase la doonayaa qofka mu'minka oo taqiga inuu noqdo mid kabaa'irta ka dheer haddii qofka mu'minka oo taqiga dembiyaalka waaweyn ka durgo sakaa'irta iyo waxa yaryar waa loo dhaafayaa waxaasna dhibaato ma lahan waa laga dhaafayaa hadduusan xalilanin asousan daa'iman samaynin waxaa kaloo la doonayaa qofka muslimka inuu weligii ku dadaalo sadaqada la bixitaankeeda iyo inuu khayr ka tagto waxyaalo wanaagsan oo looga daydo waa inuu ka tago waa inuu waxyaalaha xoolihiisa ka mida oo waqfo waa inuu rabbigii weydiisto inaan weligii la hoojin axadkii muslimahow rabbigaa ka cabso xasuuso aakhirada shiddadeeda iyo mashaakilkeeda xasuuso naxariista alle cafwiga alle dembi dhaafka alle iyo sida alla ugu gargaaraya addoommadiisa hadday wanaag sameeyaan qalad markay sameeyaanna oo uga saamaxayo usii daynayo arrimaha inaad garataa lagaa doonayaa midda kale rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam kulla bani aadam khadaa wa khayru lkhadaa'iina atawaabuun bani aadamka kulligii waa gafaf badanayaal
inta gaftana waxaa ugu khayr badan inta tooba keenta marka dadkii ayagu waxyaalahaa sharcigu diiday hore u isticmaali jiray markay ogaadaan waxa kanu inay mamnuuc yihiin waa inay isaga tagaan waa inay waxyaalihii mamnuuca isaga tagaan waa inay diinta alla ilaaliyaan waa inaysan marnaba kitaabka iyo sunnada ku tumanin marnaba inaysan kitaabka iyo sunnada ku tumanin ayaa la doonayaa ee inay diinta si dhaba u ilaaliyaan uguna dhaqmaan ayaa laga rabaa hadday doonayaan dembiga hore in loo dhaafo marka mutaqiin noqda oo ku sifooba xaqa dad ilaaliya xiriirka rabbigiin idinkala dhexeeya hagaajiya oo tawxiidkiina suga oo rabbi ammaantiisa ku dadaala iyo weynayntiisa oo rabbi u tadarruca oo rabbi keliya barya oo rabbi keliya talada u dhiibta oo naxariis alla ka rijeeya cadaabkiisana ka baqda sidaa haddaad yeeshaan dembigaa laydiin dhaafin xasanaadkaa laydiin kordhinin darajooyinkaasana laydinkugu qaadin ducadiinaa la ajiibin danihiinaa laydin gaarsiinin raaxo ayaa idiin sugnaanaysa adduun iyo aakhira labadaba ee dadka muslimiinta rabbigiinka baqda oo arrimaha noocaasa ku dadaalo kaalaya uguntada ahadka aakhiro si dhaba u rumaysan dadaalkeeda ayuu aad u badiyaa ee dadaalka badiya waxaa laga doonaya haddaanu muslimiin nahay inaan salaada alla hagaajino oo wixii alla nagu arsuqay wax ka mida aan bixino oo rasuulka wixii lagu soo dejiyey wixii asaga rusushii ka horreeya lagu soo dejiyey dhab aan u rumayno oo aan rumayno daarta aakhiradood u diyaar garowno camal saalixa aan samaysano oo wax kastoo nala ka xarimay ka tagno oo qeybka aanu rumayno sidaa haddaanu yeelno waan liibaanaynaa adduun iyo aakhirana waa nabadgelaynaa waxaan ka nabadgelaynaa ciqaab iyo cadaabka alle waxaan ku liibaanaynaa waxa alla naga dalbaday waxaana ka koraynaa wax walba oo ciriiri iyo dhibaato ku jirto naxariis alle oo firdowsaa ayaanu ku raaxaysan doonaa kolkaa rabbi hanagu daro dadka raaxaysee ahadkii muslimow rabbigaa ka baq oo wanaagga ku dadaal ahadkii rabbigii ka cabsada ciriiri walboo ku yimaada maqrajow uga baxo ayuu rabbi u sameeyey subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaa waa inuu salaamta fidiyaa cuntadiisa wax ka bixiyaa qaraabadiisa ou xiriiriyaa salaada leylka ou dukadaa dadku markay hurdayaan sow jannada alla u galo qofka muslimkaa waa inuu taqwada iyo cabsida alle ku dadaalaa qowlka waa inuu ku dhawaaqaa xaqaa markuu raalliya iyo markuu caraysan yahay waa inuu yani dhexdhexaad ku socdaa uusan waxba ku israafin kuna xadgudbin markuu faqiiriya iyo marka kale labadaba ahadka muslimkaw rabbigaa ka baq oo xaqa isu dardaarma muslimiintow oo daacada alla ku sabra oo macaasida ka sabra oo aqdaarta alle idin xanuujinaysa ku sabra oo dulqaad dheeraada ha laydinka helo oo towba nasuuxaa ku dadaala oo risqiga ilaah idin seeyo ku qanaaco qaata oo mar walbaba waa inaad istiqaamo iyo wanaag laydinka helaa ilaa aad ka geeriyootaan oo aad ku camal fashaan aayaddow rabbi yidhi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa ay geeridu kaaga timaado waa inaad ka hajirtaan meelaha dulligu ku sugan yahay oo aad diinta islaamka u garbaydaan jihaadna aad gashaan rabbi ayaanu weydiisanaynaa xaqa inuu nagu sugo ahadkii doonaya tubaakada iyo sigaarka iyo qurunka inuu ogaado ha ka raadsado meelaha ay ku sugan yihiin wanaag fara badan buu arki doonaa dadkii dana kalelena ayuga oon baa yaqaana rabbi sah noo gargaara subxaanahu wa tacaala allahuma اkhtim lanaa bikhatimati الsacaadati wayasir lanaa asbaabuha ya rab alcaalamiin ya xayu ya qayuumu ya da aljalaali wاlإkraam ya qariibu ya mujiib wsala اllahu wslm calى nabiyina muxamed wعalى aalihi وaصxaabihi ajmaciin allahuma ya muqalib alquluubi habit quluubana calى diinik allahuma musarif alquluubi wاlabsaari sarif quluubana calى طaacatik allahuma aqim dowlaة اlislaami calى wajhi اlardi kuliha wajcal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مادة يوحى إلين ديارسي مكتبة الهدى سيدوك لمكتبة الهدى وحد كيلكتان كتبتا أجلدها البمض قرآنك تفاصيلتا أحاديثتا محاضراتك مقل يا مقالبة مكتبة الهدى وحي كتلا كسوهجيتك مسجدك أبو بكر الصديق 6 ستريت حافظ إسلي نيروبي كينيا وحي فافاهين انتا دير وحاد كل حريري كتان مكتبة الهدى تليفون نمبر إبر لبشن أفر تضبع لب هل لح أما بيو بوكس كوبي 2 أفرتن إبر هل نيروبي كينيا